بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعبد الله السالم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. mudanayaal dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamantihiin. Salaan ka bacdi waxaan munaasabadan aan jeclahay inaan munaasabadan aan u jeediyo xambalyo iyo duco isu jirta mudane xasan sheekh maxamuud oo xalay si dimuqraadi ah loo doortay oo ku guuleystay doorashadii wareegga saddexaad inuu noqdo loona doortay inuu noqdo madaxweynihii tobnaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya. guusha ayada ah waa guul u soo hooyatay ma aha kaliya in marka tiimkiisa u soo hooyatay, waa guul u soo hooyatay jamhuuriyadda federaalka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed. waa guul u soo hooyatay dhamaystirka dhismaha dowladda ee jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya. waa guul u soo hooyatay haddii la kooriyay tixgelinta iyo u aabayeelka guuxa shacbiga Soomaaliyeed iyo horitamin la siinayo rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed. alxamdulilah. saa waxaan u leeyahay waxa weeyaan haddaad u fiirsataan xasan sheekh iyo aniga muddo badan aan soo wada shaqaynay oo mana baahna shacbiga maanta in loo sheekeeyo yaa waaye xasan sheekh looma baahna. hase yeeshee midda aan rabo inaan xusuusiyo waxay tahay in markuu ahaa madaxweynihii sideedaad iyo barlamaankii sagaalaad ay wada shaqaynayeen dhismaha jamhuuriyaddan federaalka Soomaaliya hay-adaheeda dowladda lagu dhisaayo oo dhan waxay badanaa shuruucda hadda oo laga shaqaynayo waxa ay ansixeen 2014 2015 intuu asaga hogaaminayay dowladda Soomaaliyeed. hase yeeshee ilaa hadda iyo bacda 5 sano ka bacdi marka hadda dib u fiiriso wax lagu kordhiyey oo ama ujeedo shuruuc ama loo hagaajiyey ama saldhig loo sameeyey dhamaystiridda ama dhismaha hay-adaha dowladda oo muhiimka ah inta hadda jirta waa intii la sameeyey 2014 haddaad fiiriso ama qiyaas aad ku samayso meeshii uu uga tagay unbay joogtahay. wax loo dhimay mooyaane wax oo usoo kordhay ma jiro, wax la dhammaystirin ma jiraan. waxyaalo badan oo markaas la ansixiyey shuruucdooda la dejiyey oo u baahan kaliya in la dhammaystiro oo aan la dhammaystirin meeshii asagoo uga tagay ay yimaadeen. saas daraaddeed u leeyahay waa guul usoo hooyatay dhammaystiridda dhismaha hay-adaha dowladda jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay ku cag istaagi lahayd. waxaa kaloo xusid mudan muddadii hadda ay socotay doorashada oo hadda lagu dhisay lagu abaabulayay baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha arrimo ugub ah ayaa jiray oo hore aan u dhici jirin, taasoo ay ka mid tahay haddaan ka soo bilaabo guddoonka baarlamaanka federaalka. waa markii ugu horreysay oo gabar Soomaaliyeed ay ka mid noqoto xubin ka noqota guddoonka baarlamaanka. taasi waa arrin soo hooyatay. arrinta kale oo ugubka ah waxay tahay iyadana in madaxweynaha Soomaaliyeed oo laba jeer la doorta inuu isagan xasan soo baxay waa arrin iyadan ugub ah. waa jirtay maarta arrimo badan oo kale ugub ah hore aan noo soo marin oo laakiin ka horreysay bishii Maars wixii ka horreeyey. Maars wixii ka soo bilowday wixii ilaa hadda laga soo gaaro oo ay bilaabatay howlaha abaabulka baarlamaanka waxay u socotay si maarata oo sidii loogu talagalay ay ku socotay. waxaana ammaantaas iska leh howshaas sidaa u socotay waa ra-iisul wasaaraha iyo xoghaynta guud ee baarlamaanka federaalka wada shaqayntooda ku jira iyo howlwadeennada baarlamaanka, kuwaasoo u baahan in maarata ammaan iyo shahaado sharaf lagu siiyo sida ay u wadeen ilaa intii aan guddoonka la samayn siday usoo shaqeeyeen iyo barnaamijka ay dejiyeen siday usoo hirgalay ilaa doorashada madaxweynaha laga soo bilaabo bisha 12 Maars ilaa maanta May. barnaamijka ayaga ay hogaaminayeen waa ku faraxsanahay. anigu waxaan ku dadaalaa waxaan soo jeedinaa in maarata shaqaalaha ama howlwadeennada baarlamaanka iyo xoghaynta guud ee baarlamaanka la siiyo shahaado sharaf lagu ammaanayo hawsha siday u fuliyeen maadaama ay yihiin lafdhabarka baarlamaanka wadadooda. marka ilaa intaa guddoonka la samayn hawshay u soo wadeen waa ammaan gaar ah aan iyaga u jeedinayo. haddii aan la yidhaahdo waxaan mar kale aan marta xambalyo iyo ducaba u jeedinaynaa madaxweyne xasan. ilaahay garabkiisa ha galo. annakana waxaan diyaar u nahay shacbiga dhammaanna waxaa weeye hal qofna wax ma bedeli karo, hal qof keligiis wax ma bedelayo. hoggaan fiican iyo tilmaamuu samayn karaa laakiin wax ma bedeli karo. wuxuu u baahan yahay dhammaan muwaatin kasta Soomaaliyeed inaan ka wada shaqayno sidii jamhuuriyaddan
maarata arrimaheeda aan dhidibada loo aasi lahaa sida maarata dowladaha goboleedyada ay maarata ay u dhismi lahaayeen sida maarata haddii alla ku rooyahay in siyaasaddan oo aarsiga meesha laga bixiyo oo dood tooso maxaa inoo dan ah maxaa ummadda u roon maxaa danta iyo diinta iyo dalka u roon in loo adeego inaan isu aragno inaan adeegayaal nahay oonaan isu arkin inaan nahay kuwa loo adeegayo aan nahay marka dhammaan waxaa allah waajib nagu ah mar haddii oo xildhibaanadii ay hadleen magaca shacbiga ay ku soo doorteen madaxweynihii tobnaad annagoo dhan waajib waxay nagu tahay inaan la wada shaqayno oo u gunto xiranno dalkaani si u badbaadin lahaa maxamed xasan sheekhna waxaan u malaynayaa inuu yahay maalinaan u malaya waxaan hubaa inuu yahay madaxweyne nabadoon ah oo run ah madaxweyne dhisaaya dhismaha u jeesanaya madaxweyne aan wax duminayna wax dhisaaya inuu yahay dowlad goboleedyada oo dhismi doona haddii aan la yidhaahdo federaaleynta dastuurka bixiso doorashooyinka arrimahaas oo dhan xasaasiga ah iyo dhaqaalaha iyo amniga kulligooda maarata bixiso mana aha qof oo hadda la tijaabinaya waa qof soo shaqeeya yaqaana hawsha meel ay joogto ka qabanaya hore ka dareerinaya meeshii ka socotay muddadu waa gaaban tahay waa 4 sano laakiin habeen iyo maalin in la shaqeeyo hore loo socday loo baahan yahay dhammaan shacbiga waxaa laga doonayaa sabr inay yeeshaan dulqaad ay yeeshaan oo wada shaqayn adag la siiyo haddaba ilaa labada maalmood marta inaan la dadejin sidoo kale maarta beesha caalamkana waxaan kula dardaarmaynaa in maarta ayna maadaama hadda un la doortay inay ku degdegin markiiba ay soo maarta kusoo buuqaan ama kusoo weeraraan inay laga joojiyo ilaa uu maarta asaga tiimkiisa ka samaysanayo oo barnaamijkiisa dhisanayo in maarta laga warsugo waa lagama maarmaan aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale hambalyo aan u duceyno jamhuuriyadda saddexaad inay noo dhisanto aan u duceyno hogaaminteena inaan hogaamin toosano alla ka cabsi laha ilahay noo noqoto aan u duceysano in maarata qalbigeena iyo qulubteena iyo qoolkeena iyo afcaasheena inay maarata is yeeshaan alla ka baryo insha allah asalaamu calaykum waraxmatulah